Soomaalidu waxay ku mahmaado xaq Ilaahay qofka eedla xan aadane waxba ma yeesho hadaad xaq Ilaahay ka toosanta hadii lagu xanto oo dadku ku xantaan ama dumarada ku xantaan wallahi gabadhaas aqalkeeda iyo ninkeeda iyo waa kaasoo caynkan oo waxa laga sheegshay sidii iyagu aan rabin خلاص dadka waxa jira marka dumarka qaar waxa jira xijaaban oo wadaada ah laakiin aad isleedahay in reeraha ay duniyaan baa loo soo diray xijaaban tahay waa asturan tahay wanaagsan tahay anigu de garan maayo inay u bareerayaan iyo in shaydaan ku shaqeynaya ciidamo shaydaan yihiin kala garan maayo halaga yaabaa in gabadhi guriga loogu yimaado iska dhaqan oo reerkeedii leh oo muddo la qabay gabadha la raba marka si farsamaysan in guriga looga dumiyo iblaayo salaamu calaykum walaa dhaqaala badnida daahiyada ma kuwii waagiba aad xidhatay alla wax ka dhaqaala badan waligay ma arag anigu inta daahiyadaasi ku xidhnaayeen 3 jeer baan bedelay roogagan ma kuwii waagi miya aad soo dhigatay bismillaahir rahmaanir rahiim gurigii ugu horeeyay ma garanaysaa meesha ku yaalan kaga soo guuray aniga dad baa iska siiyo kuwana hadda dhigtay fadhigan ma kii waagiba sariirtani ma kaasba hadii marba ducri ka soo galaysa gabadha lacag ma leedahay dukaan ma ku furan yahay ma walaal ninka ay soo shaqeeyo caruurtan hayaayo ninkaas nabilo waa kaas ninkan bixi uu ka dhiman karaa yaa ku muslina naftaada dhis oo dhaqaale samayso dukaan furo sheer gal lacag ma haysto xagee ka keena nana casbaatay waxba ma kala ogide alla tana iska baaday waxba ma kala ogide anigu biil ma ku siiya bishii ha meeqa $500 ma adoo inta qaataan leedahay lacag ma haysto ka jar bisha biilka kun haduu yahay lacagta lagu siiyo $500 laba saddex ka jar xogaa ku tashay subax waxa tiraahdaa maalin madaxa laga hay qada karin ma meelaha ka soo qaday seef garee lacagta xogaa ma dalac bilaash isugu walaaq ma garat caruurtii afku cadaadeen baa la arkaya gacmaha oo dhiig laan la soo jiifta islaantu ceel kale dhaamilaysa sheer kale ku jirta bari waxa arkaysa iyadoo tafaxaydan oo leh sheer baan ku jira ama iyadoo le waa la dhacay oo yaa ku dhacay wuxuu uma ogeyn be ma xogaa baan hayo oo isagii baa yaabayaba ilaaninka dukaan baa ka hoos furan isaguna ma ogaba arintaasi marka ko waxa ku talinaya dantaada ma wada ha wadici kartaa suwadka sheegayada qarba waxa laga yaabaa inay ka xumaato dhashaada adiga dadku waa kala dalbaday Soomaa ilaahay wuxuu ku siiyay awlaad 6 caruura 7 caruura 8 caruura ilaahay fadligii waxa gabdhaha Soomaalidu caalamka gabdhaha ugu dhasha badan waa ilaahay deeqdiisa fadligiisa gaalo marka way marba meel bay soo mareysay maanta islaamkii bay soo dhaxmartay wili islaamkii habla kamid ay soo dhaxmaraysaa oo aqoon yahana wala soo dhaxmaray gabadhii waxa la leeyahay 3-4 caruura ku gufan iyada 2-3 haysata dhashii bay iska xirtay dinkeedu ma oga jib yar bay meelaha gashanaysaa ama makaanka iska xiraysaa waxyeeladii khatartu leeyahay ma oga ka bacdina 7 caruur say u kala galaysaa maalin dhawaad waalanaysaa baa leeyahay meesha jeel majnuunka lagu geenay ilmaha yar ku dhaxwaalanaysaa ما وقوالي مسكحدا عمري دقدق وساوي كاتي فيري انا 10 سنه كاوين بدبنكيو كا قروح بدن عيال بد ساغو دحجرتيباد وبا بعض دشاده كحمت او ترنتاده كحمت يا او نبيغو يدشا بديه بري مكا ديمتيا كوسو دعيني هذا 7 دشيد افر هداي كويلود افرت كلا كوسو دعينيس افر هداي كويلود افرت كلا كوسو دعينيس انا waxaan aragnay kuwa laba caruur intay ka tageen aan dhiri hooyadu lacagna haysta hooyadoodii aabahoodoo dhintay waqaf u sameeyay aan ugu darno halka kan ay diideen oo hantidii waalidka ka dhintay gacanta ku haystaan soo ma jeedi baanu aragnay waxaanu aragnay kuwa masaakiina oo caruur 8 caruur 7 caruur ka tagay oo caruurtii ay ka tageen waqaf iyo khayr iyo duco u sameynaya adiga adduunkan maaha noloshu waa laga tagay aakhira ku xisaabta nabi maxamed dhasha badiya wa tuula salawaatullaahi wa salaamu alayhi arintaasna waa baraarujinaynaa wixii aan nasiibnay Allah inaga aqbal waxaan gafnay Allah inaga dhaafo jazakumullahu khayr wa salaam